ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء. بحسب المنظمات الدولية يستهلك القاط نصف سكان الصومال بما فيهم الأطفال، كلهم يمضغون. هل ريبوت قال إنه فيديو أني هي فيك. هنا نيروبي العاصمة الكينية. هل كان عاصمة كينيا وبين بدنا أعوذ بالله حتى وسوء أسبوع قد رأي بالأرق ومعانينا سوف يعطون لهم الكثير من المال. Soomaalida inay yihiin dad qalbiga ka jiran dhammaantooda maxay yahay video-gan dacayada ka dambaysa markaad aragto waa dacayad la yaab leh rahiib bas waxa u muhiimsan Soomaalida inay helaan waa maxay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ama tara al-usdu tukhsha wa hiya samitatun wal kalbu yukhsa la amri wa huwa nabahu eyga asoo wahda ku haya qaylinaya ayaa la iska ciiriyaa lagama cabsado lagama gabado laakiin libaaxa asagoo aamusan أرجيس كلي لقى بقايا نعم أما ترى الأسد تخشى ميادنا أركين لبحيدا إن لقى بقه وهي ساميتة أيضا إسكاء مصر أرجي راس مركل الأرك ولا بقايا والأردايا عندنا ما استاجيسو لكن والكلب يخصى العمري وهو نباح لكن أيقو عكس يسو أسوأ قيلنا حتى لقى معرض بل وحلقيا إيغاسي أما شنئي لباتين وحي أهضان إن هلقفوا عرسان كرو أما اللي بحمايا وحياب بدن أو ياب بدن cabsida inta la eg ee dawladaha carbaha khaasatan imaaraadka ay Soomaaliya ka qabto maxay tahay macnaha ma ganacsi iyo wax la mid ah ayaa ay arintu qusaysaa oo waxay doonaysaa dabcan inay hadda imbaaratoriyad iyo ilaan aqliga uu ku jiraay bas ma sidaasay doonaysaa mise arinta wax kala ku duugan aan anaga ogeyn maxay arintan wax la yaab la weeyaan boggan waan weyneenayaa video aan shiraaya la yaab leh نعم فيديو دمانتي بس ودا قادن كرو لكن waxaan isku dayaa inta muhiimka ah inaan la wadaago copyright dartiisan dabcan dhamaan idin tusi karin video-ganna maanta hadda aan video duubayo oo ah 26kii bishii labaad 2021ka dabcan insha Allah ta'ala waxaan rajeenayaa 27 inuu soo gali doono ayaan rajeenayaa video-gan shalay ay soo galiyeen Sky News muxuu ka hadlay video-gan wala yaab ugu horeyn Sky News guud ahaan waxa loo yahay Ingiriiska iskale laakiin waxa maalgeliya waa imaaraadka cadaawada aad la yaabayso inta ay la eg tahay bal ilaah baa idinku dhashay Soomaaliya ila arka fake news macnaha la yaab aan weynay hal mar aan idin tusay barakallahu fiikum okay cinwaankan ka bilaabaynaa halkaadi aan soo dhaweysto hal mar cinwaankan ilaah baa idinku dhashay u fiirsada qaybta weyn maadaama ay go'an tahay inta hoos aan ka doonaynaa inta hoos aan calaamin doono u fiirso فقراء مدمنون dadka fuqarada ah ee la qabatimay faqiirnimada macna waxay la qabsadeen oo ay caadi u noqotay oo addicted ku noqdeen faqiirnimada yani waa sida ayagoo faqiirnimo sida xaaladooda ay tahay oo fuqara ah ay waxay ku darsadeen inay hadana noqdaan dad daroogistayaal ah alqaat tijaaratul harb qaadka waa ganacsiga dagaalka yani wuxuu ka yahay nolol hadaan la helin dagaal jiraya markaas meeshan waxay dhaheen u fiirso انتنا علامه هل مر عنوان كنا مرينا او فيديو ولي ما انا قارن واحد لا مشكله اذا فقد الطعام معنى ما هدي cuntada waayaan المهم ان القات موجود waxa muhiim ah in qaadka ay helaan macnaha haday cunto waayaan waxba weyn ma ahan bas waxa u muhiimsan Soomaalida inay helaan waa maxay qaad cinwaankaasi ka soke video waan shidaya waan idin turjumaya dhageysta insha Allah ta'ala Allah idin barakeeyo cajiib laakiin waan yareenaya copyright dartiis insha Allah هي ليست سوقا للخضروات، وهذا الرجل لا يحضر باقة من الزهور. هنا الصومال البندقية في يد والقاط في اليد الأخرى. سوق خضار لوgu iibiyo ma ahan waa suuq qaadka lagu iibiyo darooga lagu iibiyo halkan waa Soomaaliya marka saxabad la ridaya gacantan waxay ku haystaan qorigii gacantanna waxay ku haystaan qaadkii daroogadii video-gan shalay ayaa la soo galiyay hadalka u fiirso ujeedada laga leeyahay waa la yaab macnaha Soomaaliya waxay ka dhigayaan haddana aan hadlayno sida inay way eg tahay dagaal inay tahay dhowr qodob inuu wadaagi doono biidinilaahi taala oo aan ka qoray cajiib waxa ah Kenyaatigi Etoobiyaanka intay soo qaateen ay leeyihiin waa ku Soomaali carruurtooda qaadka cunta maxaan ku dhahay dumarkooda qaadka cuna qof qaad aanan cunin Soomaaliya ma jiro boqolkiiba 50 ka badan cunta ay leeyihiin qaadka في كل شارع وزقاق دكان لبيع القاط jid walba iyo luuq walba ee Soomaali ku yaala dukaana ku yaala oo lagu iibiyo qaadka sidaas ay leeyihiin ma saxba ma jid walba iyo luuq walba Soomaaliya meeshii doonta haato ilaa saasay u dhigayaan qaada lagu iibiyo sax ma tahay waa been waa fake news caadi ah waxay soo qaateen isbitaalkii Dr. Xabeeb
أمراض القلبية العامة وجدا سماها بوركاسي سوقاتين معناها وحال لغو تسايا لغا دغايا سوماليدين يهين دad qalbiga ka jiran dhamaantooda maxay video aan daayada ka dambaysa markaad aragto daayad la yaab leh rahiib ah aad iyo aad naxdin u leh cajiib dadka ay soo qaateen waxay isugu jiraan Kenyaati Ethiopian Somali bal waxa la yaab kale oo kamid ah waxay soo qaadan doonaan ay tusi doonaa xamar ay waxay ku tilmaamaan inay Kenya tahay Nairobi ay ku tilmaami doonaan lambar 4 iyo kulli waa taqaana waa arki doontaan insha Allah taala tusi doonaa waxayna leeyihiin caruurta iyo dumarka qof qaad aanan cunin malahan dumarkii soo qaadanayaan dumarkan ay soo qaadanayaan ملايين الصوماليين يعيشون في فقر مدقع القليل من المساعدات الإنسانية ملايين صومالية قاجي فقر كنول حقا تبرعات عالم كوي ماذا الله سيا تاسي يكونوا ليهن معنا تبرعات كاسي يكونوا ليهن في وضح النهار شر يسيطر على الحياة الصومالية هذه ليست طائرة لنقل المسافرين كل ليلة تنقل ما diyaaradan ma waday leeyihiin dad sida caadada ah diyaaradan waxay wadaa qaad oo ah cuntadooda ay u wadaa waxaan xusuusanayaa gabayga imaam shaafici ahaa wala turi lil aadi qad dullan fa inna shamatata al a'da bala'u subhanallah alla maxaa gabaygan arintan uu quseeyaa waxay arkeen xaaladeena dhibtan haysatay arkeen markaasay nagu jeesteenayaan nagu qoslayaan ku farxayaan macnaha yaab wad yaabaysaa muxuu leeyahay imaam shaafici ولا تريها تسن للأعادي عدوها تسن قد ذلا ولقى دلني ما يكاركن لذا شيء كاركن نسقاني كاركن إن تبعانتها قاجر إرفات كذي ين كاركن هو قف استيرة قف عذاك إسكاتك مروربا ين كاركن حرد هذا إني ليدته محا فإن شماتة الأعداء بلاء محا يلكو فرحدودا كما ديسيغودا كو قسلدودا waa dhibaato weyn maxay ilaa adduunka kugu faafinayaan sidaas ay sameynayaan ayuu leeyahay rahimahullahu ta'ala fa inna shamatata al-a'da bala'u وفيرسو waxay inta qarash ku bixinayaan siday u suurad xumeyn lahaayeen bal waxa cajiib ah aad arki doontaa isla video waan ku jirta nin Kenyaati oo dhahaya hadaanan la furin qaadka hadaan la furin al-shabaab lacagta inoogu yabo hayso oo lacagta badan ah ayaan ku biireynaa lacagta al-shabaab qaadanayna ciidamada al-shabaab u noqonayna nin Kenyaati oo dhahaya ayaad arki doontaan ayaga soo bandhigay waxay ay wadaan xamlo laakiin Soomaalida badan kaga hurdaa way jifaan kama warqabno xaaladan caalamka lacagaha loo bixinaa imaaraadka caalamku lacag u fardhinaya ma ogtahay oo ma daawatay oo ma dhageysatay idaacadaha ingiriiska ma dhageysatay ama telefishinada ma daawatay xayeysiinta ugu badan ee idaacadaha ku socdaan LBC tusaale ahaan LBC waa idaacad weyn leading Britain's conversation ayaa la dhahaa idaacad aad u weyn dhaqaalaha ugu badan imaaraadka siiya soo ku siiya via xayeysiin oo ku siiya waxay xayeysiisaa diyaaradaha imaaraadka xayeysiisaa waxay xayeysiisaa wadanka imaaraadka xayeysiisaa waxay xayeysiisaa in la maalgashado imaaraadka xayeysiisaa intaaso malaayiin ay ku bixiyaan isla videogan Sky ay soo saartay Sky News waxa hoostiisa ku qoran cid alla cid fiirisa khaasatan intuu socdo inta xayeysiis ay ku jirta afar xayeysiis weeyaan video cid alla cid daawatay ama daawata afartaba imaaraad ay lagu xayeysiinaya kharashka videogan yaa bixiyay imaaraad bixisay daayada ka dambaysa waa maxay arag dhageyso daawo بحسب المنظمات الدولية يستهلك القاط نصف سكان الصومال بما فيهم الأطفال كلهم يمضغون موجودة مشى أنا كسر عليها المرة وأنا نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله وبين بضنا أعوذ بالله بحسب المنظمات الدولية يستهلك القاط نصف سكان الصومال بما فيهم الأطفال وحا خادك عنا سيدا الشيخ قريب المدوي وحا عنا نص صومالي ده معناه بقول كي بكونتن أيا عنا قادك صومالي ده كو بما فيهم أطفال حتى عروت سيدوكر ويعونان كلهم يمضغون القاط كما تقول الأمم المتحدة لا صومالي معناه هنا نيروبي هنا نيروبي هل كمان نيروبي وهل كي سيفي عرف يرسو عاصمة الكينيا عاصمة كينيا هنا نيروبي العاصمة الكينيا نيروبي ميا ميشن عاصمة كينيا ميا ميشن صوير هان أنكو تسهل مر إنير هل كان عاصمة كينيا هنا نيروبي عاصمة كينيا وفيرسو ما كينيا هلكن إلى بعد من كل شيء وفيرسو وحكدونا عن أضاء كدونا من زاوية أخرى يرى هذا الشاب الكيني أنه إذا توقفت تجارة القاط سوف يدفعهم الأمر إلى قبول عرض حركة الشباب الإرهابية بالانضمام إليها وسوف يعطون لهم الكثير من المال. We'll become a shabab because we don't have anything. ويلكم وجد كيانتيغا maxay ilaa wax ma haysano hadii kala shabaab aan noqonayna wuxuuna leeyahay wariyaha wiilkan dhalinyarada ah wuxuu leeyahay al-shabaab ayaa waxay noo bandhigaysaa lacag tira badan
si aan ugu biirno marka arrintaasina nooga badbaadiyo inaan al-shabaab ku biirno wiilka kenyaatiga dhahaya ayuu leeyahay isaga laakiin waa been hadal ay afka loo geliyo weeyaan waxaadna ku garanaysaa hadalka ninka wariyaha uu dhahayo uu ku hadlaayo maxay waa video ay ayaga sameeyeen sidaa darteeda qofka intay doonaan ka soo qaadanayaan inta kale ayaa ku darsanaya waa sidii oo kale halkan waxay aan ku soo celiyay meesha سوف يدفعهم الأمر إلى قبول عرض حركة الشباب الإرهابية بالانضمام إليها وسوف يعطون لهم الكثير من المال wiilkan wuxuu u arkaa uu leeyahay ama uu leeyahay haddaanan qaadkan laga xiray la furin ama xaaladdan haddaan ku sugnaan oo ah in qaadka uu xiran yahay waxaa dhacaysa inaan al-shabaab ku biirno al-shabaab taasoo lacaga badan na siinaysa كثير من المال حتى عصبه قدر بل أرق وأمعانينا سوف يعطون لهم الكثير من المال ولعل أحدا لن يجرؤ في الصومال واليمن وكينيا وغيرها من تجريم متعاطي القاط فإن بديل هذه الأفواه والخدود المنفوخة سيكون غضبا عارما وحوله سيدا سوكري عيد كديران كرت الصوماليا إن هي لما ممنوع قاد كمرهن محايلة هدي لما ممنوعه أففكن سيدا أتاغاني قاد كعناية ayaa waxay cuni doonaan cid walba oo ku dhiirata mamnuucidiisa qofna kuma dhiiran karo wadamadaasi ay Soomaali ku jirto in qaad kala mamnuuca afafkan iyo daamankan buuran waxa ay caradooda aadi doontaa maxay yutiixu bikulli man yaqtarib waxayna sidaas oo kale xukunka kaga tuurayaan cid walba oo qaadka mamnuucda macnaha qaadkiya Soomaali abtada wuxuu ka yahay maxay wax sida uu weyn imiso hadda dabcan qaadka wadankeena uu soo galin nacam Ethiopia meelaha uu ka soo galaa waa sax laakiin ma Soomaalida dhan ayaa qaadka cunta oo mise boqolkiiba konton cuna macquul ma tahayse ma jirto arinta marka waxaad ogaanaysaan imaaraadku uu shaqaysanaya lacaga wuxuu ku bixinayaa caalamka inuu tuso Soomaali inaysan wali dagaalkii ka bixin dagaalkii ay ku jirto baaba'san tahay faqriga ay ku jirto waxba inaan iska bedelin qaadkana danta Soomaaliyeed inuu yahay in xiritaanka qaadka la xiray ay khalad tahay in la soo daayo macnaha maxaa ummad badan ku tiirsan waxaana laga yaabaa hadduu qaadka xirnaado dawladda Soomaaliya xataa inay burburto dawladda yar ee tabcaanka jirta sida dadka maxna caalamku ka gadaya waayo caalamkaasi waxa dadka waaweyn ee macaawinada siiya biila dawladda Soomaaliya dadka marka hadii laga dhaadhiciyo oo laga gado fiidiyoyada noocan oo kala ah fake ah dabcan ummad aan Soomaaliyeed lagu soo bandhig inta badan darkiiseen waxa dhacayso maxay inay amar siin karaan awoodna u leeyihiin ama lacagtooda cishanayaan macaawinada ay bixiyaan ee gargaarka ay dawladda siiyaan ay cishan karaan sida darteeda waxay lacag ku bixinaysaa caalamkan aan idin sheego cidda qawiga ah awoodda leh wax alla waxay doonaysaa ama samaysaa dhaqan galaya waa caalamka aan ku noolnahay sida uu yahay weeyaan ciddaasi marka imaaraadku waxay isku dayayaan inay iibsadaan caadiyana way sameeyaan intaasoo lacaga ayay ku bixiyaan bal waxa cajiib ah in ciyaartooyda iyo baarlamaanka dadka ku jira ee reer galbeedka ay weliba ugu afkala dheer inay imaaraadka lacag siiso ay iibsato bal intaasoo mar la sheegaa oo la soo bandhigaa imaaraadka lacagteeda si adduunka ugu fasaadinayso ayadoo doonaysa ilaan mentality waxay leeyahay la soo baxeen muddooyinkan dambe dabcan mentality adiga ku tusaysa gumaysi ahaan inay doonayaan inay noqdaan boqortooyo weyn sal weyn leh ka talisa intaasoo wadan meesha ay ka talisa ama ay saldhigatana ma ahan inay shacabkeeda ay nooleynayso waxaa ku daliila Yemen nacam Yemen ayada haysta 100% xaaladooda noloshooda waad ogtihiin فيديوان marka waxaan u soo bandhigayaa Soomaaliya hal baraarugo caalamka fiidiyowaan hal maalin ku jira kaliya hal maalin ayuu ku jira 1 milyan iyo kada ayaa fiirsatay waxaad arkaysaa Soomaali badan oo dhahay waa fake wax ka jira ma lahan oo dagaalamay arkaysaa comment-yada cid al cidi tagta Sky News Facebook-geedu ku jira cid al cidi doonaysa waxaan ku talinayaa Soomaalida fiirsatay iyo hadii aad adiga naftirkaada aad fiirsan doontid fadlan hal report gareeyo fiidiyowgan naga bixinaya suurada khaldan beenta ah umad aan anaga ahayn naga dhigay inaan anaga inahay tusaya xataa magaalooyinkeena xataa inay Nairobi yihiin ka dhigaya intii yar ee quruxda badan ama wuxuu ka soo qaadaya meel walba baabaasan xulay waa kana Soomaali weeyaan hal report gareeyo inuu fiidiyowgan yahay fake hal report gareeyo hadduu dhanbaalkaygan ku soo gaaro aad aragto qaybi si cid walba ay u aragto una report gareyso Allah ku barakay waxaana kuleeyahay kugu soo gabagabeynaya fadhi ka kac intaad awooddo samay ku taageer Soomaali ahow mucaarad ahow muxaafid cadow banaanka ka Soomaaliya khaasatan kuwan nagu jeesjeesaya sida noo galaya rabaan inay isu kandiraan ayaa sidan horor noogu ah idaacadaha caalamka xataa iibsanaya si annaga been nooga sheego nacam wala turi lil aadi qad dhullan fa inna shamatata al a'da bala'u wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو